iminkana waxaanu wareysanaynaa khadar oo inoo jooga magaalada Ceerigaabo isla markaasna inala socodsiin doona wixii ay arintii wiilkii gabooyay ee lagu dilay magaalada Ceerigaabo ay ku dambeysay maadaama asbuuc ka hor ay ku war dambeysay khadar may maqashaa waa ku maqlaa si fiican ku maqlaa jumii si fiican ku maqlaa walaal waxaad naga noo sheegtaa wixii naga dambeeyay asbuucan iyo xaalka odayaashu meeshu marayo iyo waliba qaraaradii ay odayaashu qaateen intii asbuucan ahaa maadaama uu tolka oo dhan arintan uu la wada socdo iminkana la idinka sugayo wixii ra'aya iyo wixii xaaladdu hadda meesha ay marayso inaad nala socodsiisaan marka muddo 5 daqiiqo ayaad haysataa si toos ah ayaadna hadda khadka ugu jirtaa annana aanu ku maqlayna tolka oo dhan ku maqlaya bal nooga waran walaal khadar xaalku meeshu marayo horta dhamaantiin warta salaamantiin shashadiina aad doorto ku salaamaya arinkii aan la soconay oo maxaninkii la dilay waxa jirtay odayaasha intooda badankoodii iyo aqlada dhan in la soo hadashiyay oo odayaashii la kulanteen warkii iga dambeeyay waxa nimankii ninka laga dilay reerihiisa ahaaba reero qariyada ayaa shir u qabtay oo yiri maxay waxaan doonaynaa in aan wada hadal wada galno ma fahanti waa gartay waa ku maqlaa doratole ayay shir wada galeen oo laga wada hadlayo qolada qariyada ay soo bandhigeen yani aan wada xaal aan wada galno maxay maadaama maanta meeshii ay taalo maati aqoon ah in caruurtii mag loo qaado balse laakiin ay rabaan in ra'yigoodu ka dhageystaan nimankii ninka laga dilay ayaa yiri ninku caruur yaryar ayuu ka tagay qariyada nimankaas ayaa waxay rabaan macnaha qariyada inay ku qanciyaan tolkeen inay ma qaataan iyagoo leh macnaha caruurta u daneeya waa saas miya hadalku sida weeye inay ku qanciyaan dhahan aqoontii maadaama maanta aqoon meeshii taalo inaan nagu qaadno oo la jajafo maartay qolada in la yara gilgilo ma fahanti sidoo albaabadu xidhnaa ayuu ona ahaa odayaashii waxay ku soo gooyeen hadalkoodii ay ku soo istaageen waa odayaashii inanka laga dilay in ay arinkaas aan ma ka qaadan oo si loo dilo ninkii waa gartay marka odayaashii qariyada waxay dhaheen mag aanu idin siino caruurta yarka u daneeya ninkaana iska cafiya odayaashii beesha anaaseedna arrinka waa diideen sooma iyaga waa diideen oo arrinkoodu waxay ku soo diyaareen maxay ninkii loo dilo maadaama anagu aan fal maanta isku wada dhan aan nahay oo maanta daan cidnaan naga maqneen dalbi dibadda waxaan doonaynaa arrinkii la isku waafaqsana in ninka anaga naloo dilo ninkii maadaama ninkii xaqdaro ku dilay mar rabna anagu maanta inaan maxay aan wax gafa aan sameeyno aan bata ama qaadno maanta anaga mag waa naga go'an tahay anagu waxaan rabnaa ninkii naloo dilo halkaas markaan nimankii soo jareen maanta haddana leeyay maxay maanta isku noqdeen odayaashii oo haddana la wada hadlay oo inta waa la geeyay leeyar gilgilayo in naba inay hoos soo dhaadhacaan waxay hadalkooda ku soo cadeeyeen odayaashii inanka wax laga dilay ahaa in loo dilo ninkii bay ku cadeeyeen loo dilo marka arrinkii wuxuu yaalaa maxkamadda waxa la yiri 3 cisho kadib ayaa maxkamadda la soo imanaya oo arrinkii la ansixinaya odayaashii la gaadheen maanta marka 3 cisho kadib markii arrin uu soo baxo wixii ay soo go'aamiso maxkamaddu inay disho maanta sharciga gacanta dawladda ku jira in maanta maxay wixii go'aan 3 cisho kadib ayaa la helayaa ninkii in dib lagu soo xukumo ninkii soo dhiibo ma fahanti haddii kale yani waxay noqonaysaa sheeko ay dawladda ay wadato haddii loo diri waayo ma fahanti waa gartay walaal si fiican ayaan kuu gartay marka maadaama ay odayaashii beesha naaseed ay ku adkaysteen in ninka la dilo ayna hadalkii waawaantii ay la sameynayeen labadan asbuuc oo nimankii qariyada ay ka diideen go'aankooduna meel cad uu ku cad yahay oo ah in ninka loo dilo marka maxkamadda maalinta goorma ayaa la yiri ayaa la isugu imaanaya oo maxkamadda lagu xukumaya dil toogasha ninka yaa walaal maxaa tiriibi soo celisay aan kuma maqale maxkamaddu goormay dhacaysaa in dilka lagu fuliyo goormaas hadda maadaama adigu Ceerigaabo joogtid oo arrintiina aad la socotid oo naga ogtahay goorma ayaa la yiri ayaa maxkamadda la saaraya oo xukunka dambaysa la soo saaraya wallahi shamsuddin waxa weeye maanta sharci dawladeed ninkii ku jira dawladna shaqal yani shaqalkeeda waad garanaysaa oo dawladna maartay ninkii hadda ka hor waxay noo cadeysay dawladda inuu ninku dariiqo dheer marayo oo maxkamada 3 maxkamadood ku soo marayo
mafahamtay laba weji oo maxkamadda way dhacday oo lagu adkaystay maxay ahayd ninkii loo dilo wejigii saddexaad baa haray oo maxkamadda la isku iiminayay ninka maxay ahayd haddii ay ku adkaystaan hana loo dilo inay dawladda markaa u fuliso in loo dilo balse laakiin weli odayaashii baa labada dhinac ordayay waxaa la doonaya nimankan maxay ahayd in laga dhaadhiciyo inay ma qaataan in la qaadsiiyo balse laakiin odayaasheeni waa diidan yihiin wayna ka diidiyeen inay qaataan mag ninka hana loo dilo ayay taagan yihiin marka fayskii saddexaad oo imika maxkamadda u dan sugaynaa oo saatanba uu badan yahay inuu dhaco fayskaasaan markaa ku hubin doonaa bal wixii maxay ahayd ninkaasi dilkaas inuu waafaqsamo oo dilkaas lagu oofiyo iyo in ay maxay ahayd sheekadii xalli kale ay meesha ku timaado odayaasha waxay taagan yihiin ku adkaysteen oo go-aankoodu ka yahay in ninkii loo dilo inay taagan yihiin mowqifkoodu in isku wada raaceen kaasina wuxuu ahaa khadar oo jooga magaalada Ceelgaabo si toosaana aan uga wareysanaynay khadka internetka warkiina wuxuuna ku cadeeyay in ay odayaashii beesha naasada ku adkaysteen in ninkii la dilo kaasina waxa weeye arintaasna waxa weeye arin aad iyo aad u fiican dhamaanna waxaan idinla socodsiinaynaa wararka dambe insha Allah iyo maxkamaddu markay dhacdo xaalku meeshuu marayo ayaa idinla socodsiin doonaa insha Allah waxa waraysiga idin soo gudbinaya anigu ah Shamsadin Cabdullaahi Yuusuf Gobdoon dhamaantiina aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhageysi wacan